marka hore u sii socona saaxiibayaal marka candlestick ereygaas hadaa maqashid at least xitaa duu faafahintiisa iyo wuxuu qabto kugu soo dhici waxaa rajeynaa in sawirkaas ay kusoo sawirmi doonaan magacaan adaaba korka xifdin doono ileen 24 saac asaa kor joogi doonaa markaa suuqan qofkii rabo inuu waqti badan sii geliyo soo arki doonaa haduu ilaahdo erebixinta ku guda jirnaa weli erebixinta hadda waxaa noogu joogo erey loo yaqaano time frame maxaa la dhahaa saaxiibayaal time frame-ka waxaa la dhahaa waqti candlestick-yada haddii aan arkaynay waqtiyo kale leeyihiin macnaha tusaale kale dad waxaa jira bangiyada kale waxay trade gareeyaan suuq dhan hal way analyze gareynayaan hal bil analyze gareysanayaan trade-ku way galayaan hal bil kadib ay faa'iido suganayaan time frame-kaas waxaa loo yaqaanaa monthly time frame waxaa lagu leeyahay waqtiyada kala duwan ee qof kasta oo trader uu isticmaalo inuu ku falanqeeyo suuqa uu una helo jihada saxda ah time frame-ka marka maxay naga caawinayaan waa waxa waaye waxay ku tusinayaan waqtiyada kala duwan ee suuqa jihadiisa saxda ah suuq inuu waqtiyo badan kala duwan ka soo jihadiisa saxda ah noo tusiyaan waxa waaye markii yaraan noqo saaxiibayaal marka waxa dhan time frame-ku muxuu yahay waa waqtiyada kala duwan oo suuq ku analyze gareysan doono ku falanqeysan doono sababta waxa soo sameeyeen matqaani waa jihada saxda marka suuq inaa helo jihada saxda suuq inaa heshid maxay ka caawin doontaa ina suuqaas aad gashid ilaa lacagta ina gadatid ama iska iibisida u gali doontaa marka time frame-yada ugu badan isticmaali doono inta ku qoran yihiin ina xigsan arjina waxa suuq ka soo bilaabi doona marka falanqeynayna monthly time frame hal bila soo falanqeyn doona suuqa jihadiisa soo ogaan doona waa soo bixina waxa imaanayna week time frame suuqa fiirin doona laakiin waxa inta badan user raaciya isticmaali doona weekly time frame waxa waa isticmaali doona zaid iyo day time frame wal jiro waxa la oo ah maalinlaha suuqa sidoo kale waxa jirto 4 hour ina suuqa analyze gareyn 4 saac la soo socoto suuqan jihada u socotay waaye halka saac soo soco suuqa inta u socda jihadee waaye waxa saddexdaan inta badan isticmaali doona marmar laga yaabo bish ina suuq iska soo fiirino xaaladdu ku sugan yahay laakiin waxa waqti gelin doona ina ku analyze gareyno weeka ina ku analyze gareyn day-ga 4 hour ka 1 hour ka 5 minute time frame yar hadhow waxa marka expert noqotid ka qaraaban doontaa waxa la scalping lahaa tam 30 iyo 15 kale caadi waa laakiin 1 minute ina suuq ku trade gareyso kale okay waxa ku guda jirnaa wali erebixinta waxa arki doonaa erey loo yaqaan pips maxaa la lahaa pipsku waa decimal number taas oo sheegaysa heerka kala bedelka u dhaxeeya labada lacagood macnaha waxa laga wadaa pip waxa u naqaanaa decimal number waay mid kale waxa ku cabirnaa dhaqaaqa suuqa oo suubiyo waxa ku cabirnaa waay wax walba waxay leeyihiin halbeeg ay leeyihiin tusaale kale markii oo cabirayno wax dhulka kale kilometer isticmaalnaa marka cabirayno biyaha kale iyo wax liquid liter isticmaalnaa so that means marka suuqan dhaqaaqiisa marka rabna inaan cabirno waxa halbeeg u ah waxa loo yaqaan pips waxa dhig doona suuqan maanta 50 biyo noo dhaqaaqay suuqa maanta 60 biyo noo dhaqaaqay suuqa maanta waxa maqli doonta stop loss ka 10 bib ka dhigo bib marka waxa loo yaqaan dhaqaaqa suuqa oo suubina halkii mar suuqa dhaqaaqo waxa loo yaqaan bib marka dhaqaaq waaye marka decimal number waaye oo suuqa oo ku sheegayo dhaqaaqa uu sameeyay meel cayiman markuu ka bilaawdo ilaa meel cayiman markuu gaaro hadhow marka waa cabirayna waxa leenahay suuqa intaas oo biib u dhaqaaqay intaas oo biib ka faa'iideysan karna lacagta marka falanqeeyno lacag falanqeynayna waxa leenahay lacagta intaas oo biib ee fursad leedahay kale marka biib waxa rajeynaa inay fahantaan waa halbeeg oo decimal number ah suuqa ku cabirno dhaqaaqa suuqa ku cabirna sidoo kale waa kana halbeeg lagu cabiro suuqa ku qoran yahay lot size waxa la jiro lot size ku muxuu yahay adiga akoon leedahay akoon soo sameysatay mustarkaarka xogtii dhan aad dhameystiratay marka suuqii waxa rabta inay gashid arta lotka ku gali leeyahay lot waxa la lacagta ugu horeeyay ee suuq marka trade saas u gashid lotka ku gashaa waxa loo yaqaan lot halkaas lacagood ku gashay mar walba waxa suuqa dhaqaaqiisa ugu dhufanaa intaas faa'iido doonta intaas khasaare doonta dhanka u socotay suuqa ku aado intaas faa'iido doonta dhankii kala cagsi ku aado ku dhaqaaqana suuqa waa khasaare doonta marka lot iyo base waa zaid wax isku shaqeyn doonaan lotku waxa lagu dhawaa lacagta aad rabto inaad suuqa ku gasho labada dhinac midkood inaad suuq marka ba u galayso am selmka u galayso lotka ku galayso waxa maqlaysa lot ku gal 0.01 0.01 waa 10 cent 10 cent marka lagu dhufto tusaale suuqa meeqab dhaqaaq kara dhana 100 biibo dhaqaaqay 10 cent ku dhufto $10 maanta suuqa faa'iiday marka saaxiibayaal lot iyo bibs waxa rajeynaa inaa erey bixinta fahanteen marka waxa imaanay meeshan table kan waa muhiim qof walba inuu uu fahmo uuna xifdiyo qofkii maskaxdiisa waa wax xifdin u baahan malahan laakiin hamar inaa fahantid waa waxa la micro lot size-ki iyo waxa rabnaa iyo hadda inaa fahno bibka asla soo qaadanaynay qaabka isku shaqeeyaan oo kale inaa fahanaa rabnaa
tusaale kale 0.01 ka ku dhahay waa lotkan oo ilaa iyo 0.0 wax ka hore dhanba migra loo yaqaanaa lotkan dhan migra la lot migra isticmaal lagu leeyahay marka micro waxa lagu leeyahay 0.01 hadda suuqa ku gashid oo lacagta suuqa asaarat waxay la macno tahay 10 cent 0.10 waa 10 cent hadduu suuqa 20 bib ku dhaqaaqo 10 ku dhufo meeqa ku noqonaya suuqa $2 ka faa'iiday haddii suuqan 40 bib u dhaqaaqo 0.10 waxa ku dhufanaysa $4 suuq ka faa'iiday suuqa hadduu 60 bib ku dhaqaaqo 0.10 ku dhufsan doonta meeqa faa'iiday $6 ka faa'iiday maanta lacaga gashay 0.01 ku gashay 60 bib ku dhaqaaqday $6 ka faa'iiday lacagtaas haddii lotkaagii aa weynaysatay akoonka waxa uu weyn yahay oo kale 0.02 hadda suuq ku gashay 0.02 waa 20 cent 20 cent waxa ku dhufsanaysa $4 ka hesh meesha hadda $2 ka helad maadaama 10 cent inta tahay inta 20 cent ay tahay $4 haddii 60 bib lagu dhufto 20 meeqa haysata $12 ka shaqaysata lacagtaas mar alaale lotka iyo bibka isku dhufanayna marka triga muhiimadda aan rabno inaan ka fahno waxay tahay wixii 0.1 0.0 ba aragno hadhow waxay la macnayn sentiyaal waay 0.09 waa 90 cent lotka inta biba suuqa ku galir inta biba suuqa sarabti inaa ka faa'iideysto 100 bib waay 100 bib waxa ku dhufsataa 0.9 waa imisa $90 $90 ka helay marka saas waaye bib iyo lot saas u shaqeeyaan isku shaqeeyaan lotka waxa la dhahaa lacagta suuqa marka ugu horeysa aad rabtid inaad ku gashid bibkan waxa u naqaana suuqa dhaqaaqa uu suubiyo hadhow marka isku dhufsanaysid waxa la rabaa suuq marka si galis qasaare ay faa'iidada inaad og tahay tusaale kale lacagtan inaad gashid rabtaa stop losskeeda waxa ku soo dhigi doonaa group ku jirto waxa arki doontaa oo dheheno anigu waxa arki doontaa dheheno ishek lacagtaas stop losskeeda waa 40 bib waa 20 bib marka haddii 20 bib lagu dhaho adii qasaaraha inaad si ogaataa la rabaa haddii 20 bib lagu dhaho waxa lotka ku galarta kasi fikriyo waxa leedahay maadaama 20 bib la dhahay 0.09 hadda ku galo meeqa qasaara $18 hadda 0.05 ku galo meeqa qasaara fiir $20 qasaare sorry waa kana waxa qasaarayna $10 0.03 hadda ku galo meeqa qasaara 20 bib 60 okay take profit kan waxa ku dhahay 60 bib waay waxa la 0.09 hadda ku galo meeqa faa'iida marka lacagtan $4 alxamdulillah waa galaysaa qasaarahaagina waa ogtahay qasaarahaagii tusaale kale 20 bib oo ahay si 54 bib u faa'iidid qasaaro waxa ogolaanaysa $18 suuqa haduu kala wareego mar walba suuqa qaadanaya suuqa hubtid waay suuqa sharci badan ku soo buuxiyay waay $18 marka hadii qasaaro suuqa jihada kale kula bedeshto $18 lose gareynay hadii suuqi dhinaca rabto ku aado oo ku waafaqo istaraatiijiyadaada xogtaada falanqeyntaada dhanna $54 faa'iiday warka kooban waa kaasa hadda waxa arki doona lot mini la dhahaa lotka oo 0.10 waaye waa macnaha waxa la mid yihiin intan waa min dollar caadi ah waay 0.10 waa $1 halkis mar oo suuq dhaqaaq $1 faa'iido ama $1 qasaari doonta marka waxa ogaanaysaa 0.10 ka suuq ku gashay 20 bib ka ku dhufto meeqa haysta $20 haddii suuqa 40 bib markaas ku faa'iido meeqa faa'iido doonta 40 bib $40 $60 markaas intaan lotka iyo waxa isku shaqeeyaan waxa rajeynaa inay fahantaan kan waxa u naqaanaa mini kii hadaan waxa u naqaanaa micro midka waxa soo socda standard kan waa kana marka suuqa saaxiib yahay mid ogaada qof walba suuq ku cusub iyo aqaan qalad oo galaa jiro suuqa hada la duwan ku gashid micneeda ma ahan $1 ina kula jirto saaxiib la duwan hada kula gashid micneeda waxa $10 kula jirta halkii mar oo suuqa dhaqaaqa $10 faa'iido doonta ama $10 khasaari doonta in akoonka uu ka weynaanayo akoomada la duwanka lagu galo ma taqaanin waa akoomada 5,000 madax kala baxay waa ilaa 10,000 20,000 30,000 akoomada ku jirto kala lotkan standard kala isticmaala laakiin saaxiib waxa idin ku recommend gareynaya inta cusub tihiin akoonka hadii $100 ilaa $200 ku jiro intaan lot inaada ka badanin 0.01 ilaa 0.09 inaada ka badanin hadii akoonka $100 oo ku jiro inaad intaan ka badanin $100 xitaa intaan waa riski ku tahay laakiin hadii adiga aad leedahay trade-ka ku saxan yahay lot fiican ku galnay inaan intaada ka badanin lot standard dadka qaadan karo waa dad 10,000 madax kala baxay 10,000 la duwankaas oo kale recommended ku yahay laakiin tuubi xitaa waa halis ku yahay marka saaxiibayaal lotka iyo bibs isku shaqeeyaan waa fahanteen la duwan micneedu waxa waa $10 halkii mar suuqa dhaqaaqa $10 fiir meeshan hadii 20 bib suuqa ku qasaartay meeqa qasaare fiir $200 qasaare hadii 20 bib suuqa ku dhaqaaqo oo dhanka faa'iido meeqa faa'iido $200 60 bib hadoo dhaqaaqa $600 ay lot 9 mataqana waa $90 halkii mar suuqa dhaqaaqo $90 faa'iido ama $90 qasaari doonta marka lotka iyo bibska saas isku shaqeeyaan
waxaa rajeynaa inaa fahantaan waxaa u kala saarnay saddex mini waxaa dhahnaa akoomada yar micro akoomada dhadhexe ukunka iyo ka badan standard waxaan dhahnaa akoomada 3,000 ilaa 5,000 ilaa 10,000 inta badan lagu isticmaalaa laakiin riski lama qaato insha allah bs ilad saas u shaqeeyaan saaxiibayaal erebixinta weli ku guda jirna waxaa dhahnaa waxaa arki doonaa inta badan profit maxaa lahaa waa lacagta aad ka faa'iidi doonto isku beddelka labada lacagood loss maxaa la dhahaa khasaare hadday imaato waa lacagta aad khasaaraysid haddii sarifka labada dhinac meesha aad u dirto meesha kale kula aado entry point waxaa la jiri doono erebixinta ka mid tahay waa suuqa meesha ugu habboon ee aad ka qaadanaysa trade-ka waxaa u yaqaanaa entry so dad waxaa arkaysa arday ku dhahaa nin entry ma aqaani entry waxaa la suuqa meesha ugu saxan ee laga gali karo waxaa loo yaqaanaa entry point okay sell short iyo bearish maxaa la isku dhahaa erayadan saddexdan ere waa isku macno micnaheedu waxay ula jeedaan waa suuqa markii uu u socdo dhanka hoose oo isheeg ama la iska iibinayo waxa u taqaanidbo sell iska iibi waa short oo naqaana oo suuqa hoose u socdaa bearish noo dhaana saddexdaas magacay leeyihiin mar walba waa suuqa sell u gal waa micnaheeda haddii aragti anagoo dhahan suuqan bearish waaye micnaheeda waxa waaye suuqa sell waaye short haddii anagoo dhahan aragti micnaheeda waxa waaye suuq waa sell anagoo dhahan haddii aragti suuq waa sell oo hoose waa iska iibinaya fera meeshan yaalo oo sell iyo buy oo kala fahmayno buy ga fahmayna aydan erebixinteeda buyga muxuu yahay buy long iyo bullish saddexdaas magacay leeyihiin saddexda magac mid karto isticmaali kartaa isku macno waaye waxay loola jeedaa suuqan oo inta ka soo bilowday oo korkaas tagayo waxa u naqaanaa buy waxa u naqaanaa long waxa u naqaanaa bullish saddexdaas ere waa isku macno waxa u naqaanaa intaas u naqaanaa erebixinta markii haddii asalkii hadaa u jeednana waxa dhahnay sell ko bearish labo iyo short waxa u bixinay short maadaama suuqu gaabanayo macnaa lacagtii waa iska iibinaya waaye saddexdaas magacna waxa u naqaanaa ii sheeg waxa loo yaqaano buy long iyo bullish waxa u naqaanaa waa markii uu suuq u socdo dhanka kore ama dhanka oo la iska iibinayo oo maxaa la iibsanayo intuu ka soo bilaabo suuqii jihada xitaa ila fiiriyay intuu ka bilaawday ilaa korkaas soo tagay sell markuu yahay intuu ka soo bilaabo suuqii ilaa hoos u soo raacay waa ka faa'iiday marka okay waxaan rabnaa inaan isla fahanno faa'iidada farkis uu leeyahay marka suuqa sarifka waa suuqa aad ka shaqaysan karto faa'iidada ugu koowaad uu leeyahay waxa ka mid ah 24 saac 5 maalin waa ka shaqaysan kartaa xilliga alaal xilligaas soo kacay suuq inta trade analyze garaysatid fursad waa ka helaysaa lacagna waa ka samayn kartaa in alaal inta rabtaan ka samayn kartaa fursadda koowaad waa kow suuqa sarifka waa suuqa kaliya ee ku ogolaanayo inaad noqoto waxa loo yaqaan financial freedom waxa la dhahaa waa adigoo income leh aadan qof u shaqeynin saaxiibiya waxa loo yaqaan financial freedom la dhahaa macna qof aad wax ka suganaysid ma laha ilaahay ka sukow waxa waa qof isku tiirsanaa tahay qofna mu shaqeyso had qofkii farkas ka shaqeysana dad means qof mu shaqeeyo lacagtiisa lacag ku bedelano halaas lacag ka dhex sameeynayo marka financial freedom waa shaqada kaliya ku ogolaan karto ama inaad business awrito saaxiibiya oo aad dadka marka business awrito xitaa dad u shaqeynaysa that means laakiin financial freedom uu leeyahay oo adiga qof aad ku tiirsaneen shaqaalana ahayn waqtiga aad shaqeynaysid waqtiga aad rabtid aad iska nasanaysid wax kaliya ku ogolaanaya farkas aslaha inay jirto oo micnaheedu yahay in aad shaqeysan karto adigoon cidna aad u shaqeynaynin leh aadan lahayn waxa loo yaqaan maamulka sareeyo ama qofku amra ama qofku sheego wax adiga aad sameynayo markaasna dabirayo qarashaadkaaga wixii adiga ka baxay adoo dabirayo aad qof shaqeynaynin waxa loo yaqaan financial freedom faa'iidada farkas leeyahay kamid tahay okay suuq sarifka ma ahan waxa kala wadnaa suuqa sarifka ma ahan suuq aad ku fikirayso in aad hal habeen kaga samayso $1 milyan haddii fikirkaaga uu yahay suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex hal habeen inaad $1 milyan ku samaysid adoo maanta $100 account-ka ku shubatay inaad $1 ka samaysid way dhici kartaa inaad risk qaadatid oo hal maalin ay kugu toosto laakiin wax common ma ahan oo mar walba inay dhacaan marka saaxiibayaal haddii fikir waxaa jiro dadka inta badan suuqan waxaa jiro caqabado ay suuqa kaga ordaan waxa ugu horeeya mataqaaniin waa hunguriweyni waxa la dhaho wuxuu arkaa qof account weyn haysto oo 10,000 ugu jirto 5,000 ugu jirto oo lad fiican suuq inta ku gal lacag fiican maanta ka sameey qofkii wuxuu arkaa am group isku jiraan ama meel ku midaysan yihiin qofkii wuxuu arkaa screenshot soo dhigay lacagtii asigna waxa laga yaabaa inuu galay lad yar oo ku galay wuxuu ka xumaanaa wuxuu ku leeyahay maxaa lad fiican uu gali waay maanta ninkaas waa lacagtu ka sameey ninkaas saaxiib lacagtu ka sameey adiga isku account ma tihiin waxa laga yaabaa in isku khibrad ahayn waxaan tartiib step way tusaale kale haddii saaxiibayaal aad rabtid maanta $1 milyan inaad forecast ka samaysid waa ka samayn kartaa laakiin process ay leedahay $1 milyan ka qoro waxa leedahay bisha koowaad week walba suuqan waxa ka rabaa in lacag intaas la eego kale tusaale kale hadda haddii account-kaaga uu $200 uu yahay lacagaha ugu fiican oo recommended qofka uu lacagana haysan uu ku bilaabi karo marka $200 markuu yahay aan dadku waxa ku recommend gareeyaa suuqan saaxiiba isku waalay $200 ma haysataa
maalinkii trade fiican oo aad hubtid raadso $10 ka samee bas suuqa $10 targetkaaga marka heshaa ka bax that means hal bil marka laga soo wareegto suuqa meeqa ka samaysay $300 akoonkaagii $500 oo imaado akoonkaaga $500 markuu imaado saaxiib maalin walba akoonkaaga $25 bas suuqa uga raadi $25 maalin walba suuqa markaa ka raadisid that means waa lacag fiican okay akoonkaagii wuu koray marka oo koray oo $25 maalin walba $25 waxay noqonaysaa $750 $500 akoonkaaga kugu jirto meeqa isku noqonaysaa $1250 $250 bil ka dhigo $1000 akoonkaaga ku ilaaso si lacag fiican bil kugu soo baxdo okay maadaama akoonkaaga $1000 uu ku jiro maalinkii meeqa ka raadin kartaa saaxiib iska waali maalinkii $50 ka raadi maalinkii $50 adigu gurigaaga joog meel aad ka helaysid ma lahan forex waa ka samayn kartaa laakiin jadwal saas oo kale inaad dejisataa la rabo adigu gurigeyna ku socon fiiri marka daily mar walbana waxaad samaynaysaa akoonkaagiina waa korinaysaa bilna waa helaysaa haddii akoonkaaga maalinkii $50 aad ka soo saaratid akoonkaaga maalinkii $50 markaa ka soo saaranaysid that means waa $1500 bish inaad soo saaris celcelis ahaan 200 xataa khasaaro u bixi $1300 nadiif ah bish soo saaranaysaa $1300 waxaa laga yaabaa $300 inaad abilatid $100 save grace ama ku soo ceshid akoonkaaga 2000 markuu ku noqdane mar walba akoonkaaga uu lacag fiican kugu jirto mar walba suuqan lacag fiican ka samayn kartid sababtoo ah akoonkaaga wuxuu awood u leeyahay lad fiican ku gashid waxa awood u leedahay in trade-ka haysan kartid in muddo ah laakiin akoonkaaga haduu yar yahay suuqii dhanka kula aado kula aado oo lacag yar lacag fiican ku gasho $100 kala akoon kugu jiro lad fiican ku gasho lad weyn ku gashay akoonka hore ka goona suuqiina ku nijabay laakiin hadii 1 milyan hal habeen lagu sameeyo waqti badan ay qaadanaysaa dadka adduunka maanta taajirina waa maqlaysaan waxa lagu leeyahay ninkan 30 jirnimadiisa milyankiis koowaad gaaray 30 sano ninkii 1 milyan ku helay maxaa adiga marka 2 bari 3 bari ugu raadinay 1 sano ku raadso 2 sano xitaa 1 milyan xataa jadwalda u sameeyay waa jeef gareyn kartaa marka saaxiibayaal suuqa ma ahan waxa uu keenay suuqa sarifka ma ahan hadaa ku fikiraysid in hal habeen 1 milyan ka samaysid waa sida ganacsi oo kale wuxuu rabaa jadwal inaad siisid waqti inaad siisid bilinkaas inaad jadwal u samaysatid okay suuqa sarifka ma ahan meel qof walba oo isha lacag ugu lunto kaliya waxay lacagta ugu luntaa qof walba aan aqoon dhameystiran suuqa u lahayn hadii suuqana tusaale kale waxa arkaysaa inta qof isoo wuxuu leeyahay saaxib forex wareega si walaal forex saama wala laga shaqaysaa lacag fiican laga sameeyo niyo bari akoon furna ku leeyahay war walaalo baro suuqa ma jirto waxaas wuxuu ku leeyahay anoo barana lacag si sameeyna saaxiibayaal waxa idin kula talinaa markaad dareentaan gacantiin in idin fadhiiso suuqan bilaaba hadii aad lacag khasaarinaysa sababta u khasaarinaysa ogta cilmi aad leedahay hadii aad faa'iideysan sababta u faa'iideysa leedahay cilmi aad leedahay laakiin qofkan suuqa ku cusub waxa laga yaabaa oo waxaan cilmi ka lahayn inuu soo galo qof lacag siiyo signal qaato qofka signalka aad ka qaadanaysa adiga ma og akoonkaaga in $100 ku jiro in $100 ku jiro koow waxa laga yaabaa in 100 bib waa 100 bib dhaqaaqi hadaan soo cabireen waa 100 bib inuu stop loss kaaga soo dhigo suuqa khasaare kugu imaado faa'iidina 10 bib kaaga soo dhigo adi mar walba 50-50 ku jirta 100 bib akoonkaaga ma u dul qaadan karo $100 kale ku jiro oo lot 0.01 xataa ku gasho $10 hamr loos gareene dhibaatay kugu taa marka saaxiibayaal waxa idin ku recommend gareenaya hadii aad mustaqbal fiican rabtaan waqtigiina bixiya suuqan ku dadaala okay erag ugu dambeeyna waxa waaye suuqa sarifka ma ahan suuq adigoon aqoon u lahayn aad lacag ka sameyn kartid ana baan idin sheegay waxa laga yaabaa qof trade signal intuu qaadanayo waxa siin doona waqtiga waxa u reebi doona Mr. Ahmed gudoomiyahina asaa arinta waxaan kaga sheekeyn doona in signal la qaato iyo micnaheeda waqti badan ninkan suuqa uu ku soo horeeyay waqti badan uu galiyay gudoomiyaha dhibaatooyin badan uu ka soo maray waqtina uu reebi doona oo recommendation uu siiyo marka saaxiibayaal suuqan cilmiga wax walba ka muhiimsan tusaale hadii aad cilmi yeelatid oo qof perfect aan noqotid suuqan si nadiif ah u taqaan aad ku shilin haysaneen wallahi billahi tala ayda ku soo doonanaysa lacag baan midin sheegay inta albaabka lagu soo gargaraaca lagu leeyahay $100,000 ku wada ma nagu shaqeyn kartaa $50,000 ku wada ma nagu shaqeyn kartaa intaana kun marka adiga waxa heshay wax muhiim ah qof lacag meel iskala fadhiyay aan kula soo raadsanay marka waxa la dhahay xigmad waxa jirta dhaheeso fursadda iyo diyaar garow waxa jirto isheeg diyaar garowga iyo fursadda meesha ku kulmaan waa meesha guusha ka imaato waa adoo isdiyaariyay oo suuqii bartay qof waxa arkaysaa ehelkiina qof waxa arkaysaa lacag haysto waa isdiyaarisay marka fursadda heshay fursaddii iyo waxa isku heshay diyaar garowgaagi waa qof diyaarsan oo aad fursaddiina ku soo martay isla markaas waa guuleysanaysaa lacagtaas qabsanaysaa $100,000 maanta dil gudiyo can you imagine lacagta ka sameyn karto suuqan oo cilmina aad leedahay markay ugu yaraato aad leedahay risk management ee isticmaala suuq lacagtana waa ilaalina
am sure $7,000 soo bii kartaa qofka lacagta iskale waxa leedahay bil kala bara ku siinaa 35,000 per month ku soo galays waa lacag waali marka saas oo kale marka long term vision aan leedahay waxa waaye suuqan ku guuleysanaysa saaxiibaya laakiin haddii hungurubeeni oo loo bir ku taajir kugu jirto oo ku qasaaray berino iskaga tagaysaa dadkii kaaga dambeeyay aniga waxa jiro dad badan oo suuqan isla soo galnay isku mar bilawnay isku xili wada bilawnay حتى عشرة أسئلة يبسجرني كل ما يقول تجين سويت متقانين هم جروبيني أو كجرتي هل ما أنا كتاجر أنا مركو إيه عدد إن وحوى مستقبل كمال في عنك كجاريس مك صاحبي قال حرجنا أساسه كذا نقطة جرت مركو طب عشان ليه 90 محل يقول الجدا وهذا الكهذا أكسوه هلا حكوا ده هاي واحد جرت قرمه أرانا يسوق بقول كي بسجاشن جنا عسته السوق عن كل عصب واحد يلوميان بقول كي بسجاشن لعبته ده سجاشن كمان لو هراي warkaas waa war muhiim ah ina fahantina muhiim ay tahay idin waxa kala jeednaa gan qof walba suuqan ku cusub hubaal waa 90% lacagtiisu lumina qof walba 90% ganacsatada suuqa ku cusub waa dadka suuqa ku cusub loo jeedaa waxay luminayaan lagu dhaha 90% lacagtooda tusaale kale $100 luminay 90 kamaan ugu horeys war ninka is ilaaliyo oo dadaalo oo waqti badan adkeeyo 9 maalin waa 3 bilood oo kale 3 bilood gudaheeda lacag soo lumina kii lumiile waa marka saaxiibal si ugu digtoonaad waxa laga baahan yahay marka maxaa sababa horta ogaan waxyaabo sababay waxa sababay kow waxa loo yaqaan lacag aan xadidneen ku trade gareena akoonkiisa soo yar oo saka fikireen lacag xadidneen oo suuqi ku galaa kow hadii suuq oo kula jeestane stable suuqi kuma xiranayo wuxuu leeyahay lacagtan waa isoo laabanay wax la ma jiro adiga بريل كسمة سوقان هذا صلابتنا صراع مركله لكن سوق مر والب خسارة يفائده أذو أك وحخسارس أذو أك وحفائده السوق قال أوكي محاك لو وكم يدو حيابه قف عن سوق أقان ولهين سيدو كلا نكون فكرة إنه عيو تاجر نقضه سوق فركس وسيد جناع سيدو كلا أوكي عادي وباهي وقت جدول أقسم يستي وقدام بين مركب وجدك وين سوق صرف كفوركس إنه سنهين إن هذا بين كسمين كرت $1 مليون هذا الكسر مرة كسوع العلي وأدريم دون تامرك إن مدجوكتان مركز صحيال واحد نكركم من الجرينا إن أنتي أهدان بحين أسوق هذاني أن كذا بينه أود صارن إن واحد برنا مر أنا مكاح برتي لعت أيضا سكيمانس you don't worry هذا حرفة سوق هذا مسترن له إن الشيء هتد ما بقرنا كده أنا كده هو الواي مركز سيا دقالة وأورت السوق صرف كالعجة قلات وحاطط بهانتها إن برتو sida uu suuq u shaqeeyo inaad fahanto waxyaalaha suuqa saameynta ku leh maxaa kamid ah niyuusadiyo qaab farsamo inaad la timaadid qaab farsamo taasoo ka dhigayso sarif la guuleystay taasoo ka caawinayso joogteyn faa'iido ah xornimo dhaqaale taasoo micnaheedu yahay inaad dabartid qarashaadkaaga adigoo aan cidna u shaqeynaynin marka saaxiibayaal muhiimadda maanta casharkan ku saabsan waxay tahay kow ina overview qaadana suuqa iyo wuxuu yahay iyo qaabka lacag looga sameeyo intaas waa soo sameynay sidoo kale saaxiibayaal waxa ugu muhiimsan ee qof walba oo markuu jaranjaradan soo fuulaayo ana inta had ogahay micnaheedu ma ogeyn marka idinka in la mid ah ama suuqan soo galay wallahi baan min sheegay qaladaadkan dhan oo haddaan idin kaga sheekeynaa war kama helin akoonkay waa gubay lacag badan ka sameey waa ugu jirtay qaladaad badan oo ani soo galay waxyaabaha hadda basic ku soo dhex darnay oo zoomka maanta in kula share gareynay marka saaxiibayaal si ugu badbaadno taas aysan noogu dhicin oo aan waxaan ugu noqono wax consistency ah oo aan u dabar adeegno waxa u baahanahay jadwal wax walba leeyahay in jadwalkeeda marno waa tusaale kale waxa jirto geed loo yaqaano oo Chinese ka ay abuurtaan oo dheerka oo sida qasabka oo kale u eg bamboo tree lahaa geedkaas waxa lagu leeyahay markii la abuuro oo maanta saas loo abuuro oo la beero waxa jirto 5 sano oo maanta ka bilaabanayso geedkaas wuxuu sameynayaa way beerayaan oo way bacriminayaan maantuna caara ku shubaan biyo ku wadaan wax dhan ay ku suubinayaan hal maalin ka mid 5 sano gudood ilaa uu ka dhameysanayo xalan yaris xitaa ma soo saarayo sababtu ma taqaaniin marka waxa lagu leeyahay markuu 5 sano dhameysto oo geedkii waqtigiisa u dhameysto in 5 weeks 5 isbuuc gudaheeda marka 5 sano soo dhameysto 5 isbuuc gudaheeda geedkii wuxuu gaarayaa 90 feet tall 90 feet inta kor u baxo inta soo baxa caleen iska dhaafay 9 feet oo soo baxa geedkii wixii ay rabeen ku qabsanayeen marka taas waxay la macno tahay hadii adiga aad og tahay waxa la mid tahay geedkaas oo kale hadii geedkaas qofkaas marka geedkaas beerana wuxuu og yahay wax ka dambeeyo waxaan og yahay
wuxuu sabroy shan san geedkan biyo u shubayo u bacriminayo maalba carada ugu bedelayo u keer gareynayo wuxuu og yahay wax ka dambeeyo og yahay marka idinkana inaan noqotaan sida geedkaas oo kale inaan u fikirno oo waxa naga dambeeya aan ogaano oo ah in haddii xitaa hal sano suuq forecast inagu qaadato inaan lacag $1 million ka samayn weyno inaan long term vision u fikirno ma imaanaysaa xilliga noqoto inaan lacag waali ah suuqan ka samayso laakiin ha degdegin account kagana isku gubin anigu waxaas waana waxa idin siinaa waxay tahay qofka markuu account gubo mar labaad gubo mar saddexaad suuqan hubaal wuu ka baxaa weligiis dib uguma soo laabanayo marka saaxiibayaal hunguriweynyaal iskelinin waxa awood saarayna inaan wax barano hal bilaa haysanaa halkaas bil ani inta ilaa ifaansi waa idinku bari doonaa waa soo gabagabeyn doonaa wax sida oo ugu macquulsan oo loo barta u baran doonaa maalin walbane waxa waaye xiisada qaadan doona waa arki doontiin 5 minutes to 7 minutes to 10 minutes oo waxa dhiirigelin ama waani inay ku jirtaa laga yaabo sababtoo ah mar walba waxaa diida inay ordaan haddii aa meeshan ku ordaan dhibaata idinkaga imaanayso suuqan ma kaa dhammaanayo kow weligiis wuu jiri doonaa intay lacag jirto labo maxaa isku waalaya marka haddii maalinkii $20 aa heshid suuq isaga bax haddii maalinkii $50 heshid akoon fiican suuq isaga bax waxaan waxaa la rabaa inaad beel ka dhigatid iska beelatid dad waxaa jira haddana asxaab aan aqaano $5,000 ugu jirto wuxuu ku leeyahay ustaad aniga maalinkii $50 badan ka badan marib war saaxiibo lacag fiican ka samayn kartid mareebiyo ku leeyahay biilkayga iga badan suuqa ina maalmo ku jiraa rabaa si maalmo ina ugu jiro waa ina equity-ga suuqa ka ilaalsada suuqan maalmo waxaa jiro niis iska soo baxaayo waxaa jiro mararka qaar oo fursad inta aragtid lacag dhinaca kale kula aadayso marka lacag la isgarayso waa mar alaale marka uu jibkaaga badanayo waa mar alaale markaa suuqa sii dheeraanaysa marka si consistency u ahaatid wax baro waqti badan suuqa geli waqti ka badan waqtiyada geli marka saaxiibayaal saas idin kula dardaarmaya marka hal mid aad jirto halka mid jirtana waxay tahay haddii aad ogtahay meesha u socotid waa inay guul tahay oo wax walba ee kugu qaadato wallahi dareen farxad dareemay maalin walba dareen farxad adoo ku jiro kursiga ka soo fadhiisanay habeenkina salata ka fadhiisanaysa saaxiibayaal marka meesha u socotid inaad ogaatid la rabaa meesha u socotid waxa waa in aniga xirfad helno kow inaan very experience tusaale kala waxyaabaha qaladaadka hadda wadanka ka dhaca waxaa ka mid ah in dad badan oo banaanka iska jooga lacagtii lagu wada aamin loo dhiibay oo lacagtii la wada loosgareeyay bal ka waran inteenaan hadda 18 keenan qof haddii experience professionals ahaan lahayn millions ka 98 million hal qof loo dhiibaa lagu leeyahay 98 million intaan hadda ka faa'iideysan lahayn wadanka ugu shaqeyn lahayn oo xirfadiisa experience ah ku noqon lahayn ma qiyaas kartaan lacagta suuq wadanka soo gelin lahayn lacagta anagana aan shakhsiyan shaqeysan lahayn lacag fiican aan shaqeysan lahayn marka saaxiibayaal waxa u dhimanayno oo u fikirayno aniga long term vision-kayga waxa waaye qofka inaan noqdo qofka ugu weyn oo Soomaaliya haduu trade gareeyo kambaniyada ugu weyn Soomaaliya u trade gareeyo inaan noqdo rabaa micnaheedu taas vision iyo wax yar oo hadda maantadan $10 iyo $50 iyo $100 iyo $100 hadaa xitaa hamigayga ma bedeli doona micnaheedu waxa waa meel dheer u jeedaa adigana meel dheer kala xariiqo marka meel xariiqatid oo jadwalka aad ku gaari leed aasamaysatid waa ajiif gareyn doontaa wax badan insha Allah saaxiibayaal warkay idinku badinin 5 minutes waxaan siinaa su'aale 5 minutes gudoomiye Axmed aan siinayna haduu ilaahay